عشر كحية وعشر كأفرية تمنات إن شاء الله حبرنا إن دول إرادو وحل إرادو basic image manipulation including flip صور أما image كسيدة ad manipulation وحو بدل لهيت نو سمان إن flip ما حيصور هنا بدشيت أقابو سوجي دنيا سكالي تدو قرها خاص كديك تدو بديها مدي كديك flip بنا سمان إنه وريجين مركا أقول أبنهم هلا عشر كهورة بدو بتشوف إن شاء الله عشر كان waxaan abuurayaa script cusub baan furanayaa ama file cusub si monitorka igu soo baxo marka image manipulation practice oo kale folderka fileka marka waxaan la iska clear garaynayaa CSC okay dib baan soo bilaabayaa waxaan iraaday variable-ka a waxay igu kaydisaa I am read function wuxuu sheegaa I am read waa maxay read image from graphic file kasoo akhri image-ka graphic file okay graphic file keena marka muxuu ahaa Abdinaasir okay abdinaasir.jpg okay marka waxaan sameynayaa image waxaan ku sameynayaa flip okay inaan bedelo kor flipping ku sameeyo up and down okay marka maxaan sameynayaa waxaan leeyahay variable-ka b baan wax ka dhiganayaa waxaan isticmaalayaa function-ka la yiraahdo flip up and down soo jeed flip array up and down up to down okay marka maxaan dhahayaa waxaan soo gashanayaa variable-ka a sababta image-kan raba inaan wax ka bedelo oo kor aan hoos geenayo waa maxay waa file-kan waaye wuxuuna igu kaysan yahay marka maxaan dhahayaa waxaan rabaa inaan labada image aan isdhinac dhigo waxaan isticmaalayaa subplot okay subplot marka maxaan dhahayaa waxaan rabaa inaan ka dhigo 2 row 1 column kana uu noqdo image-ka koowaad waxaan leeyahay marka plot waxaan leeyahay plot ma isticmaalaya I am show isticmaalaya I am show okay subplot waxaan leeyahay row 2 column 1 column 2 okay I am show b okay marka waxa weeye waxaan rabaa inaan labada sawir aan isdhinac dhigo okay run gareeyo okay marka haddaan weynaysiiyo sawirkii maxaa ku dhacay manipulation up buu ahaa down waa ka dhigay okay waxaan rabaa inaan isdhinac dhigo waxaan ka dhigayaa hal row iyo 2 column hal row iyo 2 column si uu u qurux badnaado okay sidaan aan rabaa okay marka koodkan rabaa inaan xoogaa hal mar akhriyo variable-ka a wax ku kaydiyey inuu soo akhriyo image-kii b waxaan ka dhigay inuu flip ku sameeyo up and down hadduu up ahaa down uu ka dhigo variable-ka a kadib maxaan sameeyey subplot baa iraaday 1 waa maxay waa 1 row sawirkan hadda hal row weeye 2 waa maxay 2 column column-ka koowaad column-ka labaad 1 image-ka koowaad maxaan ka dhigayaa I am show variable a variable-ka a weegan okay kana waa maxay subplot 1 hal row 2 column 2 sawirka labaad ama subplot-ka labaad image showgana maxaan ka dhigay b-na waa maxay waa flip of up and down of variable of a marka image-kii aan manipulation ku sameeyo saanu isu saaraya sawirkaygii up ah kana waa maxay down buu ka dhigay okay waa bedeli karaa
waxaan ka dhigi karaa meesha up and down waxaan ka dhigi karaa left to right. Okay, left to right LR aan rangareeyo soo jeedid hadda left way muxuu ka dhigay right, labada sawir wuxuu weeyay hadda isku mid maaha. Okay, marka qaabka noocaas waxa loogu sameeyaa image manipulation up and down waa rabaa inaan ku cirshado. Okay, waxa jirta wax la yiraahdo sawirku wuxuu ka kooban yahay red, green, blue and yellow. Okay, marka waxaan rabaa faariiq hadda waxaan rabaa inaan idin tuso. Okay, halkan comment waan ku qorayaa percentage baan isticmaalayaa color change. waxaan rabaa sawirka inaan colorkiisa bedelo. Okay, colorkiisa inaan bedelo marka maxaan sameynayaa waxaan qaadanayaa variable-ka y waxaan ku keydinayaa a. Okay, markaan a ku keydiyo sawirku wuxuu ka kooban yahay wax la yiraahdo red, green iyo wax la yiraahdo red, green iyo yellow. waxaan rabaa sawirka inaan sawirka a waxaan rabaa inaan ka dhigo yellow. Okay, colorkiisa aan ka dhigo blue. marka see uga dhigaya waxaan leeyahay y. Okay, laba dhibic comma koodhka gadaal baan ka sharaxayaa 1 is equal to 0. Okay, y laba dhibic comma 2 is equal to 0. waxaan leeyahay I am show y. Okay, oh my god. Okay, okay, marka si kuwan aan iska xiray subplotkan colorkan raba inaan manipulation ku sameeyo. Okay, percentage-ka markaan ka hormariyo koodhka ma akhrinayo, marka intaan oo dhan hadda waa ka saaray, yani koodhkan lama akhrinayo. Okay, sawirka hadda colorkii waxaan ka dhigay color buluuga ah. Why? sababtaan uga dhigay waa maxay? waxaan sameeyey waxaa idhaahday y waxay igu keedisaa variable-ka a oo ah image-kan. kadib waxaa idhaahday y laba dhibcood 1 is equal to 0. that means red colorku wuxuu ka kooban yahay 3 color, waa red, green iyo blue. waxaa idhaahday red, green iyo blue. Okay, blue uda red iyo green oo dhan waxaa ka dhigtaa 0. Okay, then waxa ku xiga waa maxay? qaybta koowaad waa red, qaybta labaadna waa green, qaybta blue ahayd waa ka booday. Okay, waxaa idhaahday laba dhibcood dhibic waxa leeyahay laba colon waxa leeyahay colon 2 is equal to 0. yani sawirka y qaybta red colorka waxaa ka dhigtaa 0, qaybta green colorkan waxaa ka dhigtaa 0, kadibna itus I am show y. marka that's why marka waxaa idinku challenge garaynayaa inaad samaysaan red. Okay, kan hadda waa red, green iyo blue. hadda marka haddaan isku dayno 2 3. Okay, hadda 2 iyo 3 waxaan ka dhigay 0 iyo 0. wuxuu noo soo saaray inuu sawirku yahay red because of red waxa ugu horeeya waa maxay? waa red, green iyo blue. marka hadda waxaan ka dhignay green
iyo blue waxaan ka dhignay 0 redna waa ka aamusnay okay hadda marka red iyo green iyo blue soma halka hadda marka haddaan ka dhigo red oo 1 haddaan ka dhigo greenku waa 2 oo aan ka aamuso greenka oo aan bluega 3 ka dhigo sawirkan hadda wuxuu noqonayaa green okay soo ma jeedid green buu noqonayaa okay sababtoo ah kan koowaad waa red waxaan ka dhigay 0 2 waa ka booday sababtoo ah 2 waa green waa red green blue kan saddexaad maxaan ka dhigay 0 marka hadda red iyo blue waxaan ka dhigay 0 greenna waa ka aamus okay marka sidaasaa manipulation sawirka loogu sameeyaa waxaan rajaynayaa insha allah inaad isku daydaan oo aad u practice garaysaan insha allah intaasaan kusoo koobayaa